بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معنا مال وناكسن داوديال ومال سبتي تاريخنا ay tahay 11 bisha Abriil sanada 2024 oo ku beegan 13 bisha Shawaal sanada 1447 ee Hijriyada kusoo dhawaada barnaamijka wararka maanta oo idinku soo gudbin doono wararkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida ka dhacay saacadii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan qodobadaan maanta barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah waa Xisbullah oo weeraro culus oo ka dhanaca ciidamada Israa'iil ka fulisay koonfurta Lebanon iyagoo beegsaday ciidamo iyo gaadiid ay ka mid yihiin taangiyada Markava ciidamada Israa'iil oo dhankooda wada duqeymo xagga cirka oo ay ku qaadeen magaalooyin ku yaal gudaha dalka Lebanon wadahadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Lebanon oo ka bilowday magaalada Islamabad ee Pakistan waxa ay saaran rajo xumo waxaa soo baxaya warar sheegaya in dhaawac culus uu soo gaaray hogaamiyaha sare ee Iran duqeyntii lagu dilay aabihiis maalintii koowaad ee dagaalka Iran war ay arintani ka soo saartay ugu yaraan 7 Falastiiniin ah oo lagu dilay weeraro maanta Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku dhawaaqay rasaas joojin ku meel gaar ah oo ku aadan dagaalka Ukraine inta lagu jiro munaasabada dabaaldega masiixiyiinta ee Easterka dhammaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta haddii aad degan tahay dalka UK oo aad doonayso inaad lacag dirto waxaan ku hayaa fursad dahabi ah si fudud ula soo deg abka Somrimit adigoo isticmaalaya taleefankaaga tabletkaaga ama kombiyuutarkaaga Somrimit oo ah xawaalada ugu raqiisan ee lacag dirista waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada hadda kala soo deg abka Somrimit Google Play ama App Store-ka Somrimit amaano iyo adeeg hufan ku soo dhawow qaari online qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku uu u dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay wax barayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo la adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijka waliid xaaji cabdi oo barnaamijka ila daadihinaya bal haynu ugu bilaabo wararka caalamka kuwooda ugu door karo waliid baasirada nimca maanta waxaynu ku bilaabaynaa dhankaas iyo Pakistan halkaasi oo lagu soo waramayo in ay ka bilowdeen wadahadallo xasaasi ah oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda magaalada Islamabad waxaana lagu soo waramayaa dhaqdhaqaaqyadan diblomaasiyadeed inay ku aadan yihiin wadahadallada u dhaxeeya wafuudda sare ee ka kala socota Mareykanka iyo Iran iyadoo la doonayo in la xoojiyo rasaas joojinta aan cagaha adag ku taagnayn isla markaas la soo afjaro dagaalkii 40 maalmood socday ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Israa'iil oo isbahaysanaya iyo Iran oo docda kala ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Mohammed Ishaq Dar ayaa sheegay in Pakistan ay jeclaan lahayd in ay soo hor fariistaan wafuudda Iran iyo Mareykanka halkii ay u kala dabqaadi lahayd iyagoo ku kala sugan laba qol wadaxaajooddan bilowday dhanka Mareykanka waxaa wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance si loo muujiyo in wafdigu leeyahay awood buuxda oo uu ku maareeyo arrintan xasaasiga ah waxaana ka mid ah wafdiga ergeyga Stephen Witkoff iyo Jared Kushner oo Trump la taliyo u ah dhanka kale wafdi ballaaran oo Iiraani ah oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Iran Maxamed Baqir Qalibaf ayaa soo gaaray Islamabad waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi iyo saraakiil kale oo muhiim ah tirada wafdiga Iran ayaa lagu sheegay in ilaa 70 xubnood ay gaarayso ay ku jiraan khubaro farsamo kuwa amni dhaqaale iyo warbaahineed rajo taxadar leh ayaa laga muujiyay wadahadalladan iyadoo saraakiil Pakistaaniyiin ah ay sheegeen in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance
door muhiim oo ka qaatay bilaabista geedi socodka nabadeeda. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ayaa muujisay kalsooni darro ku aadan dhanka Maraykanka, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi uu sheegay in Tehran wadahadallada ay ku gelayso niyad wanaagsan, balse aysan kalsooni buuxda ku qabin dhanka Maraykanka. Ajadaha wadahadallada ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro arrimaha sare, waxaana la sheegaya inay ka mid yihiin barnaamijka kobcinta uraniumka Iiraan iyo xorriyadda maraakiibta ganacsiga ee marinbiyoodka Hormuz. Wadahadalladan ayaa sidoo kale waxaa la qabanayaa iyadoo la adkeeyey ammaanka magaalada Islamabad, iyadoo kumanaan askarina la dhoobay wadooyinka si loo sigo ammaanka kulankan muhiimka ah. war kale oo arrimahan la xiriira, wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo xigatay la saro Iiraaniya oo sheegay in Maraykanku ogolaaday inuu sii daayo hantida Iiraan ee hore looga xayray. Sarkaal Iiraani ah ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid muujinaysa dhab ahaanshiyaha iyo rabitaanka Washington ee ah in heshiis laga gaaro wadaxaajoodada ka socda Islamabad. Ilwareedka ayaa sheegay in sii deynta hantida la xayray ay si toos ah ula xiriirto damaanad qaadista marin ammaan ah oo maraakiibta ganacsiga ay u maraan marinka Hormuz, taasi oo ka mid ah arrimaha ugu xasaasisan ee ajendaha wadahadalladan. Sidoo kale isla wararkan, madaxweyne ku-xigeenka Iiraan Maxamed Reza Arif ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in heshiis la gaaro, waase haddii wadaxaajoodada lala yeelanayo dhanka siyaasadda ee matalaya Maraykanka ay mudnaanta koowaad siinayaan Maraykanka halkii ay ka ahaan lahayd mudnaanta in la siiyo Israa'iil. Arif ayaa intaasi ku daray in dalkiisu ku qasban yahay inuu si xooggan isu difaaco marka la eego xaaladda imika taagan, si lamida sidii hore, isagoo ka digay in haddii xiisaduhu ay sii socdaan, dunidu ay la kulmi doonto khasaaro weyn. wararkan ayaa waxay imaanayaan iyadoo ay socdaan dadaallada dhanka diblomaasiyadda oo lagu doonaya in lagu dejiyo xiisadda gobolka iyo in xal waara laga gaaro khilaafka u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka. waa tahay haatana haynu eegno war weyn oo maanta soo baxaya. wakaalada wararka ee Reuters ayaa ku waramaysa iyadoo soo xiganaysa ila Iiraaniyiin ah oo sheegay in hogaamiyaha sare ee Iiraan ee cusub Mujtaba Khamenei uu weli kasoo kabanayo dhaawacyo culus oo kasoo gaaray wajiga iyo lugaha kadib duqeyn lagu dilay aabihii Cali Khamenei bilowgii dagaalkan. saddex ilwareed oo aan magacyadooda la shaacin ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday xarunta hogaamiyaha sare ee Tehran uu sababay dhaawacyo halis ah oo soo gaaray Mujtaba, iyadoo mid ka mid ah ilaha laga soo xigtay oo ay soo xigatay wakaalada wararka ee Reuters ay ku saleysan yihiin qiimeyn sirdoon oo Maraykanka, taasi oo tilmaamtay suurtagalnimada in Mujtaba Khamenei laga gooyay mid ka mid ah lugihiisa. si kastaba ha ahaatee, ilwareedyadu waxay xaqiijiyeen in weli uu leeyahay awood maskaxeed oo sare, isla markaana uu ka qayb qaato go'aan qaadashada dagaalka iyo wadaxaajoodada isagoo adeegsanaya shirar maqal ah. dhinaca kale, saraakiil Iiraaniya iyo Yusuf Pezeshkian oo ah wiilka madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in hogaamiyaha sare uu wanaagsan yahay, isla markaasna caafimaadkiisa uu fiican yahay, inkastoo uusan weli si fagaara uga soo muuqan meelna tan iyo markii loo doortay xilka hogaamiyaha sare 8 bisha March aynu ku soo gudubnay. warbixin kale oo ay daabacday jariiradda The Times ee ka soo baxda magaalada London ayaa waxa ay sheegtay, iyadoo ku salaynaysa xusuus qor dhanka diblomaasiyadda ah, in xaaladda caafimaad ee Mujtaba Khamenei ay tahay mid halis ah, isla markaasna lagu daaweynayo magaalada Qom. hubanti la'aanta xaaladiisa ayaa imaanaysa xilli Iiraan ay wajahayso mid ka mid ah dhibaatooyinkeedii ugu cuslaa 10 sano. markana wararka iska horimaadada Xisbullah iyo Israa'iil. ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa shaaca ka qaaday inay fuliyeen weerar isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsaday ciidamada Israa'iiliyiin ah oo ku sugnaa deegaano kala duwan oo ku teedsan xadka Lubnaan iyo Israa'iil. Xisbullah ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay diyaaradaha aan duuliye lahayn ku weerartay goob ay isugu yimaadeen askarta ciidanka Israa'iil ee ku sugan deegaanka Metula. weerarkani ayaana lagu tilmaamay mid si toos ah u beegsaday ciidamo iyo saldhigyo military oo Israa'iil ay leedahay. sidoo kale, ururka Xisbullah wuxuu sheegay in gantaal nooca la hagayo diyaarad drone ay ku baagsadeen taangi ay leeyihiin ciidamada Israa'iil oo ku sugnaa magaalada Al-Adasiya, iyagoo xaqiijiyay in bartilmaameedkaasi si guul leh ay u gaareen.
weerar kale oo kan la mid ah ayaa lagu soo warramaya in kooxdu ay ka geysatay magaalada Binti Jabal halkaasi oo Xisbullah ay sheegtay inay si toos ah u haleeshay oo guul ah taangi ay leeyihiin ciidamada Israa'iil. docda kale Xisbullah waxay sheegeen inay gantaal ku weerareen askar iyo gaadiid military oo Israa'iiliin ku sugnaa deegaanka Kiryat Shimona, waxaana la sheegay inay sii kordhinayaan weerarada ka dhanka ah militariga Israa'iil. dhankooda ciidanka Israa'iil ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu ku bartilmaameedsado goobaha laga tuuro gantaalada iyo unug hubeysan oo ka tirsan Xisbullah gudaha wadanka Lubnaan. Telefishinka Al Jazeera ayaa soo sheegay in ciidamada Israa'iil ay duqeymo cusub ka fuliyeen magaalooyinka Al-Mansuuri iyo Jabshid ee koonfurta dalkaasi ku yaala. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaana iyadu waxay xaqiijisay in 3 qof ay ku dhinteen weerarada oo ku jiro shaqaale caafimaad halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn Israa'iil ay ka geysatay magaalada Tuule ee dalkaasi. dhinaca kale ururka Xisbullah ayaa waxa kale oo uu sheegay in weerar kale ay ku qaadeen deegaanada Horfeshim, Shalom iyo Nahariya oo ku yaala waqooyiga Israa'iil iyagoo adeegsanaya sawaariikh. waxay kale oo sheegeen in ay beegsadeen ciidamo iyo gaadiid Israa'iiliin ah oo iyaguna ku sugnaa aagga loo yaqaan albaabka Fatima ee ku yaala xadka Lubnaan iyo Israa'iil. kooxda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in mar labaad ay gantaalo ku duqeysay magaalada Nahariya halka telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay uu sheegay in la arkay ku dhawaad 5 gantaal oo lagu riday aaggaasi iyadoo inta badan gantaaladaasi la qabtay sida hadalka loo dhigay. ciidanka gudaha Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in sariga digniinta ka bixiyay gantaalada laga maqlay deegaanada Kiryat Shimona iyo Mitlata oo ku dhow Jiliil kadib gantaalo laga soo riday xagga Lubnaan. raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaana sheegay in ka badan 2,200 oo gantaal oo laga soo riday Lubnaan kuna wajahnaa Israa'iil tan iyo markii uu bilowday iska horimaadka u dhaxeeya Israa'iil iyo sidoo kale Xisbullah. waa hagaag bal markana aynu eegno qodobada kale ee wararka ku jira. ugu yaraan 7 Falastiiniin ah ayaa la dilay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib weeraro Israa'iil ay ka fulisay qaybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Mareykanka Gaza. diyaarad aan duuliyan lahayn oo Israa'iil leedahay ayaa la sheegayaa inay 2 gantaal ku riday meel u dhow saldhig booliis oo ku yaal xerada qaxootiga ee Bridge ee ku taal bartamaha Gaza, sida uu wakaaladda wararka ee AFP u sheegay Maxamuud Basaal oo ah afayeenka adeega samata bixinta dadka rayidka ah ee Gaza. xagga dagaalka Ruushka iyo Ukraine, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ku meel gaar ah oo u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine taasi oo ku beegan dabaaldega Easter-ka ee ciidooda. Kremlin-ka ayaana sheegay in xabad joojintu ay socon doonto qiyaastii muddo 32 saacadood iyadoo bilaabanaysa 10 galabnimo ee Sabtida oo maanta iyo 11 Abriil kuna eg dhamaadka maalinta Axadda. ciidamada Ruushka ayaana la faray inay joojiyaan howlgallada dagaal ay wadaan iyagoo weli heegan ku jira. Moscow ayaana ugu baaqday Ukraine inay ixtiraamto heshiiskaasi xabad joojinta gaaban ah. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaana muujiyay diyaargarow balse waxa uu ku xiray in Ruushka uu si dhab ah u ilaalinayo xabad joojintaasi oo ku dhawaaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. waatahay bal haatan aynu eegno warar imika ka soo koray dhanka Lubnaan iyo Xisbullah. 2 askari oo Israa'iiliin ah ayaa lagu soo warramayaa in dhaawac uu ka soo gaaray iska horimaad toos ah oo ciidanka Israa'iil iyo dagaalamayaasha Xisbullah ku dhex maray koonfurta Lubnaan. raadiyaha militariga Israa'iil ayaa xaqiijiyay in 2 askari oo ka tirsan guutada ciidanka baarashuudka ku booda dhaawac uu soo gaaray kadib markii iska horimaad halkaasi ay kula galeen ciidamada dagaalamayaasha Xisbullah. waa hagaag daawadayaal guurdha waxay nagu soo wajahan xubinta falanqaynta ee barnaamijka oo ku eegi doona arrimo ku saabsan dagaalka bariga dhexe iyo sidoo kale xaaladda hogaamiyaha sare ee Iiraan ee cusub. sidoo kale waxay nagu soo wajahan warbixin ku saabsan waxa ay ka macno tahay ciidamada Mareykanka uu ku soo daabulayo bariga dhexe xilli wada xajuudada uu kula leeyahay Iiraan dalka Pakistan ay ka soconayaan si loo xalliyo arrimaha ku aadan dagaalka bariga dhexe. balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah. qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya
iyagoo adeegsanaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoostagana bangiga caalamiga ah ee IBS eBesa goob kasta iyo goor kasta Sombay and Rent Property Finder sifihii mar hore saxariir ahaa iyo suuq fogaa laga samabaxayo sir baan ku haya waana Sombay and Rent Property Finder ma tahay qof doonaya inuu iibsado ama kireysto ama iska kireeyo guri ama dhul ma ku daashay raadinta meel lagu kalsoonaan karo oo si fudud ku gaarsiisa guriga aad rabto haddaba xalka waad haysataa maanta Sombay and Rent waa shirkad online-ka ama waxa loo yaqaano Property Finder oo isku xirta milkiilayaasha guryaha iyo dhulalka real estateska agencieska iyo dadka raadinaya guryaha ama dhulalka hoteelada ama furniture apartmentska ama guryaha qalabaysan waxaana dhammaan adeegaasi aad hal meel uga wada heli kartaa Soomaaliya Kenya Egypt Turkey UK USA iyo Saudi Arabia oo boqolaal qof ayaa hore uga faa'iideystay adeegan adiguna maanta ku biir oo booqo sombayandrent.com haddii aad tahay agency ama milkiile iska diiwaangeli website-ka ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda mahadsanidin soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka wararka maanta oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaasheena koobaad iyo labaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebook, YouTube, Twitter iyo Telegram-ka idinkoo warar degdeg ah macluumaadyo kale iyo faallooyin ka heli kara bartaan internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna oo HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka وهاجاج أنت ينرجو بين حبنتها فلانقينتها يا موليد بل أنه مركه رئادنا وربيحين كسب سنة قبير كفالو دار المهم اللي سرقوا وكور بحيه وحي كمعنتها إذا ماذا أمريكان كوكوسو دا بوليو بريغا دي حيل وده هذا لو كل اللي هاي باكستان وفود كسعودها دنكا إيران سوى ده حاجة اللي قبله علمها كسب سنة صار جريدة دقال كبريغا دي حيل وربيحين علمان يكون عدن وحينوها هي وريها يجا محمد عبد الرحمن الشيخ سرية قوتو سيد قنين علم بارسره oo militariga istiraatiijiyada ah ayaa carabka ku adkeeyay in si waditaanka Mareykanka ee ciidamada militariga ee ku sugan gobolka ay ku soo beegmayso bilowga wada xaajoodka Washington iyo Tehran isla markaasina ay ka turjumayso hab joogto ah oo ku saleysan dhaqdhaqaaq iyo diyaar garow ciidan iyadoo aanu saameyn ku yeelanaynin jihada wada xaajoodada socda قنين ayaa u sheegay Al Jazeera mubashara in habkan uu jiray ka hor iyo intii lagu guda jiray dagaalka iyo sidoo kale kadib ku dhawaaqitaanka xabad joojinta labada toddobaad isagoo xusay in Washington ay ku sii socoto qorshe military oo muddo dheer ah kaasi oo jeedadiisa ugu dambaysa ay tahay in lagu qasbo Iran inay aqbasho shuruudaha Mareykanka xitaa iyadoo oo wadada wada xaajoodku ay sii socoto waxa uu tilmaamay in ku noqoshada Mareykanka ee wada xaajoodku aysan ka dhignayn in uu awoodi waayay inuu qaato go'aan military balse sababtu ay tahay qasaaraha sare iyo ka kanaanta dagaalka isagoo sharaxay in xal military oo ka dhana Iran uu u baahan yahay waqti dheer iyo ciidan aad u badan isla markaasina uu yeelan karo saameyn dhaqaale oo caalami ah gaar ahaan maadaama qalalaasuhu uu ku xiran yahay marinada tamarta ee muhiimka ah qabiilka militariga ayaa tilmaamay in farqiga u dhaxeeya xalinta dagaalka iyo ku guuleysiga dagaalka uu wali yahay arin go'aan qaadasho leh isagoo sharaxay in sarreynta militariga ee Mareykanka aysan ahayn damaanad qaad in uu si degdeg ah ku gaaro yoolalkiisa siyaasadeed iyada oo la tixgelinayo in Iran ay haysato kaarar cadaadis istiraatiiji ah kuwaasi oo ugu muhiimsan yihiin gacan ku haynta iyo xakamaynta wax ku oolka ah ee marinka Hormuz iyo waliba awoodeeda ay ku hanjabi karto in marinada kale ee badda sida Bab al-Mandab ay xiri karto xakamaynta marinka General Said Qunayn ayaa waxa uu xusay sharaxayna in Iran ay wada xaajoodka ku galayso iyada oo guuleysatay kadib markii ay ka gudubtay marxaladii halisaha xambaarsaneed una gudubtay heerar ay ku soo rogtay xakamayn marinka oo ay ku jirto nidaamka dhaqdhaqaaqa maraakiibta iyo waliba soo rogitaanka xayiraadaha marinka taasi oo siinaysa awood weyn oo cadaadis ay ku saarto dhaqaalaha caalamiga ah waxa uu ka digay in fashilka wada xaajoodku uu horseedi karo waxa uu ku tilmaamay dabinkaasi kordhinta xiisadda maadaama labada dhinacba ay sii wadaan kor u qaaditaanka heerka iska hor imaadka si tartiib tartiiba iyadoo aanu la gaarin xal cad waxa uu xusay in xal military oo wax ku ool ah
oo u baahan yahay tallaabo wadajir ah oo caalami ah si loo sugo marinada badda. Qoneem ayaa sidoo kale waxa uu saadaaliyey in Mareykanka iyo xulafadiisu ay u dhaqaaqi doonaan horumarinta nidaamyada difaaca cusub oo ay ku jiraan waxa uu ugu yeeray derbiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si looga hortago hanjabaadaha sii kordhaya ee Iran ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada iyada oo la doonayo in la xadido saameyntooda ka baxsan xuduudaha Iran. qabiilka militariga ayaa carabka ku adkeeyay ugu dambeyntii in sii waditaanka weerarada militari oo kaliya aysan ku filnayn in lagu gaaro yoolalka Washington isla markaasina ay u baahan tahay in khilaafku uu sii socdo iyada oo lagu guda jiro dheelitirka adag ee u dhaxeeya awoodaha militariga, cadaadisyada dhaqaale iyo kuwa juqraafi siyaasadeed. Maxamed Cabdiraxmaan HBN. waa hagaag aad buu mahadsan yahay maxamed oo inoo soo koobiyey warbixintaasi. mawlid intaynan u gudbin bal qaybaha kale ee aflanqaynta maxaa dheeraada uu laga ogyahay dhaawaca la sheegaya inuu soo gaaray hogaamiyaha sare ee Iran ee cusub Mujtaba Khamenei. dabcan intaynu ognahay warbixintan ayaa ugu dambeysay oo ay daawacday maanta wakaaladda wararka ee Reuters. wakaaladdu waxay sheeganaysaa in macluumaadyo dhanka sirdoonka Mareykanka arrintan ay sheegayaan. sidoo kale waxay leedahay ilo wareediyo dhanka Iran ah oo weliba aad ugu dhow hogaamiyaha sare ayaynu soo xiganaynaa. shakigana waxaa keenaya waxa weeye tan iyo markii loo caleema saaray Mujtaba Khamenei hogaamiyaha sare ee Iran weli ilaa hadda si toos ah looma arkin marka laga tago fariin qoraal ah oo laga sii deynayo warbaahinta dowladda Iran. shakigana waxaa keenay arrinkaasi xitaa cod ama muuqaal iyo inuu meel fagaara yimaado. inkastoo la ogsoon yahay inuu yahay yoolka koowaad marka loo eego Iran oo si cad ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo madaxweynaha Mareykanka u sheegeen inay isagu uu yahay ninka ugu muhiimsan yoolkooda. waliba Israa'iil ayaa aad u doonaysa dilkiisa ama beegsigiisana wax weyn ay ku dhalin kartaa Iiraaniyiinta. waayo Mujtaba Khamenei waxa la ogsoon yahay bedelka Abiis inuu bedelay ma ahan oo kaliya hogaamiyaha sare inuu yahay laakiin waa nin go'aanka iyo go'aan qaadashada dhanka militariga kaalin muhiima ku leh. waxa kaloo la sheegaa inuu Abiis aad iyo aad uga mowqif adag yahay. taana waxay ka dhigaysaa Iiraaniyiinta in go'aan adag ay qaataan oo ay ka sii fogaadaan mowqifka ay qabeen. arrinta kaloo walaaca ku haysa Mareykanka iyo Israa'iil iyo reer galbeedka waxa weeye inankan yar ee 57 jirka ah oo Abiis bedelay inuu dhalin karo in uu qaato go'aan lagu samaynayo bam nuclear ah. waxaa jirta maanta warbixin uu sheegay nin professor ah oo lagu magacaabo Professor Robert Babe oo ka tirsan jaamacadda Chicago ayaa waxa uu leeyahay Iran waxay samaysan kartaa nuclear 6 bilood ilaa sanad gudihiisa. wuxuu yiri xitaa haddii ay isku dayaan Mareykanka iyo xulafadiisu waxba kama qaban karaan. marka waxa moodaa arrintaasi inay tahay tan ugu walaaca weyn ee soo fosaaraysa waxa Iran ay u aragto cadowga. dadkaas marka waxa laga yaabaa in ay ninkan beegsanayaan sidaasna ay tahay sababta oo ilaa hadda banaanka ugu soo bixin. laakiin warkan wakaaladda wararka ee Reuters ay sheegayso ayaa wuxuu xoojinayaa warkii ay hore u sheegtay jariirada The Times ee ka soo baxday magaalada London. waa tahay Iiraaniyiintu maxay arrintan ka sheegeen ama ka yiraahdeen? markaynu ka tagno warkan hadda aynu ka maqlayno Yusuf Pezeshkian iyo mas'uuliyiinta Iiraaniyiinta oo beeninaya arrintan horey Iiraaniyiinta arrintan way uga digeen xitaa dagaalku markuu socday dhowr jeer ayaa waxay yiraahdeen cadowgu wuxuu isku dayayaa in dagaal xagga maskaxda dadka Iiraaniyiinta uu ku sameeyo. marka tan laftigeeda macluumaadka laga soo xiganayo sirdoonka Mareykanka waxa laga yaabaa inay tahay arrin dhanka dadka Iiraaniyiinta loogu talagalay jahwareerinta lagu sameeyo maskaxda lagala dagaalamo. labana aamini karo wakaaladda wararka Reuters iyo xitaa The Times waxa ay qorayaan. laakiin arrintu waxay ku cadaanaysaa waxa weeye Iiraaniyiinta waxa ay sheegaan in la soo xigto. laakiin ilaa hadda waxa la hubo ma ahan warkan ka soo yeeray wakaaladahan iyo hay'adahan wareed ee reer galbeedka. waa gartay dhanka kale mawlid waxaa jirta in warar sheegaya oo soo baxayaan in Mareykanku uu ku soo daabulayo ciidamo gobolka bariga dhexe isagoo dhanka kale magaalada Islamabad ee dalka Pakistan wada xaajood kula leh muddo ka socota xagga Iran. maxaa lagu ogyahay bal ciidamadan dheeraadka ah ee Mareykanku uu ku soo daabulayo gobolka isagoo xagga kalena
ka raadinaya xal nabadeed. dhinac waxaa la ogsoon yahay horta Mareykanka inuu tanaasulaad sameeyay markii ugu horeysayba Iiraaniintu laba shuruud bay ku xireen bilowga wada hadallada waxay yiraahdeen waa in la joojiyaa dagaalka ka socda koonfurta Lebanon oo Israa'iil ay wado arrinka labaadna wuxuu ahaa in loo fasaxo lacagihii laga xayiray waxa lagu dhawaaqay Mareykanku inay fasaxeen lacagtii dhammaan Iiraan laga haystay taas marka waa guul dhinaca marka laga eego ciidankana waxa loo arki karaa Mareykanku inuu gacan dhanka diblomaasiyadda uu ku doonayo in heshiis la gaaro dhinacna xoogga wuxuu ku saarayaa Iiraan u cagajugleeyay si shuruudihiisa ugu aqbalo sida qabiirku uu sheegayay laakiin si guud marka loo eego arrintan kaba marna isku day Mareykanku uu ku doonayo in Iiraan uu mar kale hadii wadahadadan ay guul dareystaan ama xitaa hadii ay wax ka soo baxaan xitaa inuu isku dayo isiraado fursad baad haystaa hal mar armaad ku daydaa Iiraan inaad qabsatid jasiiradahan kharaaj oo kale ama kuwan ku yaala gacanka Beershiya arrintaas ayaa imaan karta waana suurtagal ayaa la leeyahay dagaalku inuu mar kale dib u bilowdo laakiin Mareykanku qasaaro weyn ayuu ku jira arrintan dhanka Israa'iilna qasaaruhu wuu xoogaysan yahay waxaad moodaa inuu maalin ka dambaysa faahfaahin ay soo baxayso marka waxaa loo arki karaa inay tahay arrintan cadaadis dhanka diblomaasiyadda gudaha Mareykankana durba waxaa ka bilowday dagaalku markuu joogsaday sheekadii waxaa soo laabatay faylashii Epstein ayaa soo laabtay taa laftigeeda marka waxaa loo qaadanayaa mar walba Trump uu u jeesto wada xaajood iyo xabadda in la joojiyo faylashaasi marka dib in loo soo abaabulayo haddii faylasha dib u soo laabtaanna Trump wuxuu jeclaan lahaa in faylashan hal mar arrintooda laga aamuso dadka uu ka jeediyo waxyaalaha ku jeedin kara waxaa loo arkaa dagaal inuu qaado si aan arrintaas looga hadlin marka waxaad moodaa in wax badan isku gadaamiyihiin ay isku milqan yihiin laakiin waxaynu arki doonaa waxa ka soo baxa wada hadalladan Islamabad waa tahay aad baad u mahadsan tahay Mowlid daawadayaashuna waa imaansan yihiin gudaanintaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa maanta barnaamijkii wararka maanta oo halkan aniga iyo Mowlid Xaaji Cabdi aynu idinkaga soo tabinaynay si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn nagu soo biir tariinta dib u kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees